السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynayaa inaad wanaagsan tihiin. qisadana maanta waxay ku saabsan tahay sadaqada oo loo xusho qof mudan ama sadaqada oo la siiyo qofkii mudnaa iyo faa'iidada ay leedahay. hadda kahor baa gabar waxay wado kula kulantay nin maskax ahaan xanuunsanaya dhimar kala qori dhulka wax kula sawiraya. way ku soo laabatay waxay tiri adan maxaad qabanaysaa isagoon ka fikirin buu yiri waxaan sawirayaa jannada oo qayb aan u sawirayaa. way dhula cadeysay way aragteen waxaan xanuunsan yahay waxay tiri adeer jab qayb ka mid ah jannada oo jab ka mid ah iga iibi waa imis markaas uu yiri waa $20 boorsadii furtay $20 ay siisay aad buu u farxay ninkii ayadana waxay tiri allah ku caafiyo asalaama. habeenkii markii xaafadda maalinta danaheeda inta soo dhamaysatay markii guriga ku laabatay oo habeenkii la gaaray ayaa jiifka waxaa lagu tusay riyo iyadoo ahlu jannaha ka mid ah oo jannadii ku dhex sugan. aad bay u faraxday subaxdii waxay la wadaagtay ninkeedu tiri nin shala saasaa sameeyey xalayna riyadaasaa lii tusay anigoo jannada jooga. ninkii wuxuu yiri suurtagal maaha masaabaa dhacday haa bal anigana waxaad i tusisaa ii sheegtaa ninkaasi meesha uu joogo anigana aan helo inta aad heshay. dabcan ducaad iibsatay sidaasi ayana lagugu tusay manaamka wanaagsan ama riyada wanaagsan. wadadii iyo shakliga ninka iyo meesha uu fadhiyay iyo muuqaalka uu leeyahay u tilmaantay. isla maalintii uu tagay ninkii wuxuu yiri salaamu calaykum ma fiican tahay inaad janno iga iibisaan rabaa. markaasuu yiri waa lagu kala baxay waa la iibsaday inta hartayna diyaar uma yahay inaan iibiyo. ninkii si walbuu ninkii isugu dayay inuu u sasabo si jannadii uu iibsado laakiin wuxuu daraystay. xigmada sheekadan ku jirta waxa weeyaan jabrul khawaatir waxa la yiraahdaa jira. ataxiyaadka waxaa ku aragteen wajburni warzuqni wahdini wacaafini. marka jabrul khawaatir in qof qalbigiisa ama wax uusan malaysanaynin u fikirto adiga aad qofkaasi kasbata qalbigiisa wax fudud ma aha. cibaadadana kuma koobna keliya salaada sadaqada soonka tasbiixda ee waxaa jira fadli intaasi in la mid ah laga helayo ama ka badan. waxaana ka mid ah in qof dhibaato haysatay kurbadiisa la fiido soo xadiidkii lahaa qofkii kurbada dunyada qof ka fiida asagana kurbka aakhiro ama kurbooyinka aakhiro ayaa laga fiidaa. sidoo kale faa'iidooyinka ay leedahay in sadaqada qofka ku kadiso ama ducada aad ka iibsato ama aad ku xado waxaa ka mid ah in waalidka oo arrimo ay ku taagnaayeen hooyooyinka waa taqaanaan waa geed weyn oo la harsado qaaraankii iyo sadaqada iyo martida iyo inta hansatid ugu yaraan inaad hooyadii oon kaa warhaynin tiraahdo hooyo lacagtaas oo naxiso ama tiimka kula shaqeynayo xaaladiisa qof aad ka warhayso ama qof aad wadada kula kulanto dadka xogmaalka ah ee liita inaad uga farxido sadaqo wax weyn baa lagu gaaraa. waayadan dambe internetka mashaakilkiisu wata laakiin waxyaabaha faa'iido number waxaa ka mid ah oo aad ugu farxay maamo caday iibinaysay oo wiil dhalinyaro aakhir allah si inta la sheekaysto maalintii meeqa ka heshaa bay tiri wax ka yar $1 ama $0.5 oo siiyay 1 milyan oo lacag shilin Soomaali ah. ummadii farxad ay loois markii jabrul khawaatirka ama qofka oo sadaqada looga faray faa'iidooyinkaas ay leedahay. waxaan rajeynayaa inaan caawino dadka liita adduun iyo aakhira wad ku liibaanaysan. sadaqadu waa gaashaan aan bixino sadaqada aan caawino dadka masaakiinta ah. السلام عليكم.